su'aalo ay tahay in aad ilmahaaga maalin kasta weydiiso. Halkani waa deefsame iyo anigoo ah Ahmadeef. Korniinka ilmuhu waxa ay u baahan tahay aqoon, shaqo iyo feejinaan badan, maadaama oo duruufaha uu yaraantiisa la nool yahay iyo deegaanka ku xeerani ay yihiin kuwa jaangoynaya qofka uu mustaqbalka noqonayo. Waalidku waa inuu maalin kasta ilmaha siiyo wakhti yar oo uu la sheekaysto, isaga oo weydiinaya su'aalo la xidhiidha nolol maalmeedkiisa. Su'aalahaasi waxa ay ilmaha ku abuurayaan kalsooni iyo dareen ah in uu leeyahay cid garab taagan oo uu talo iyo caawimo ka heli karo. Waxa aanu kordhinayaa jacaylka uu waalidku qabo, isaga oo ku dhiiranaya in aanu ka qarin xogtiisa iyo waxa uu falay ama uu doonayo inuu falo. Dhaqankan waalidku waxa uu tirtirayaa teed kasta oo kala xidhi lahaa ilmihiisa iyo cabsida ku beeri lahayd in isaga oo ciqaab ka baqaya awgeed aanu u sheegin runta iyo waxa jira. Su'aalahaas waxaa ka mid ah: maxaad dareemaysaa maanta? Waa su'aal fursad kuu siinaysa in aad fahamto duruufaha uu la nool yahay ilmahaagu, gaar ahaan marka aad aragto in uu cadho ama niyad-jab iyo wixii la mid ah dareemayo. Maxaad jeceshay in aynu wada samayno? Ilmahaaga sii wakhti aad la samayso wax uu jecel yahay, ciyaart, sheeko, iyo wixii la mid ah, xitaa haddii ay 5 daqiiqo oo keliya tahay, waxa ay muhiim u tahay barbaarinta ilmaha. Iga sheeke wax maanta kaa qusliyey ama kaa oohiyey. Ka warayso faahfaahinta duruuftiisa maalinlaha, tusaale ahaan weydii waxyaabaha uu la kulmay ee ka cadhaysiiyey ama uu ku farxay. Waa suurtagal inuu kuu sheego wax aan macno lahayn, laakiin ujeeddadu waa inuu ogaado in aad danaynayso. Ii sheeg wax aad qabatay ku guulaysatay oo aad ku faraxsan tahay. Su'aashan wakhtigeeda ugu fiicani waa hurdada ka hor. Marka uu kuu sheegana, waxa aad bartaa in Alle hawshaas u fududeeyey, sidaas awgeed uu u mahadnaqo. Waxay baraysaa inuu wanaajiyo xidhiidhka Alle uu la leeyahay. Waxa kale oo aad bartaa in uu u mahadnaqo cid kasta oo hawshaas ka caawisay. Waxay xoojinaysaa xidhiidhka uu bulshada la leeyahay. Maxaa dhibaato ah ee aad maanta la kulantay? Ilmahaaga ka warayso dhibaatooyinka iyo caqabadaha uu la kulmay, laakiin ka dheerow in aad ku canaanato haddii uu kuu sheego wax uu isagu qalad ku leeyahay. Waxay ku abuuraysaa kalsooni ku dhiirigelisa inuu mustaqbalka kula wadaago qaladaadkiisa iyo waxyaabaha uu ku fashilmay, iyo xitaa inuu go'aamadiisa kuu sheego inta aanu fulin. Haddii ilmuhu kuu sheego arrin xasaasi ah oo aanad ka filayn, ku abaalmari oo u muuji farxad, adiga oo talada iyo tusaalaha waajibka ahna ugu sheegaya si dhibirsan. Canaanta ama ciqaabtu waa ay sii fogaynaysaa, waxa aanay ku abuuraysaa cabsi aanu dib wax kugu sheegin.